kulan wacan daawade meel kasto aad joogto waxaad ku soo dhawaataa qiso cajiib ah waana qisadii qabsatay beeraleydii yaqaanay luqadaha xayawaanada waxaa jiray nin beeraley xoolo dhaqato ahaan jiray wuxuuna lahaa xaas iyo caruur ninkaasi alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu deeqay aqoonta luqadaha xayawaanaadka iyo shimbiraha laakiin hadduu ka xog waramo waa uu dhimanayaa ninkaasi beeraleyda ahaa wuxuu lahaa dameer iyo dibi dameerka shaqadiisa waxay ahayd in ninka uu raaco ee meesha uu doono uu ku aado halka dibiga shaqadiisuna ahayd in subaxii ilaa galabtii beerta lagu falo maalintii dambe dibigii ayaa u yimid dameerkii isagoo iska ag fadhiya oo cooskana iska cunaya biyahana ag yaalaan wuxuuna ku yidhi dameerow way kuu dhacatay aniga waan daalay oo tabcaan ayaan ahay sidii beer la iigu falaayay laakiin adiga halkan ayaad cooska iska ruugaysaa shaqo badanna ma qabatid markaas ayuu dameerkii yidhi talo anigaa kuu haya beri markii lagu yimaado oo xarigga iyo tiirka yaambada beerta lagu falayo lagugu xiro iska fadhiiso hana istaagin xitaa haddii ay ku garaacaan haddii aad kacdana mar kale fadhiiso markay kaa dareemaan tabardarri waxay kuu keenayaan bal iyo coos si aad xoog u yeelato ee ha cunin cuntada iyo cabistana jooji ilaa 2 maalin sidaas ayaad shaqo badan kaga nasan kartaaye ninkii beeraleyda ahaa sheekadoodii ayuu maqlay wuxuuna la yaabay arrintan subaxii ku xigay markii la gaaray ayuu dibigii diiday in uu kaco si kasta oo la isugu dayay waa kici waayay markaas ayuu ninkii beeraleyda ahaa yidhi dameerka hala wado oo beerta ha lagu falo markaas ayaa dameerkii la waday oo maalintii dhan beerta lagu falayay galabkii markii uu dameerkii moorada ku soo laabtay wuxuu u yimid dibigii oo nasiino ka dhargay markaas ayuu dibigii u mahadceliyay dameerkii abaalka u sameeyey iyo talada uu siiyey darteed laakiin dameerkii uma uusan jawaabin isagoo si xun uga shallaayay in taladaasi isaga siiyey dibiga haatan uu midhaheeda guranayo maadaama shaqadii dibiga ka cararayay isaga loo xil saaray maalintii labaad ninkii beeraleyda ahaa wuxuu u yimid dameerkii isagoo dibiga faraha ka qaaday mar labaad ayaana beertii lagu soo falay galabtii isagoo tabcaan ah markuu ku soo laabtay xeradii waxaa mar kale u mahadceliyey dibigii laakiin dameerkii ayaa markan ku yidhi dibigii aniga waan kuu naseexeen waayo waxaa maanta maqlay ninkii beeraleyda oo shaqaalihiisii ku leh haddii beri dibiga kici waayo waxaad u geysaan kanwaanlaha si uu u qalo wax faa'iido ah laguma qabee marba hadduusan beerta fali karine markuu dibigii hadalkaasi maqlay ayuu haddana dameerkii u mahad celiyey wuxuuna dhahay beri waan howl bilaabi doonaa ninkii beeraleyda ahaa sheekadaasi wuu maqlay dibigiina wuxuu bilaabay inuu wax badan cuno isagoo shaqo isu diyaarinaya subaxii markii la gaaray oo uu ninkii beeraleyda ahaa uu arkay fagfagta dibiga ka muuqato iyo siduu shaqo diyaar ugu yahay ayuu qosol la dhacay naagtiisii oo meeshii ka dhoweed ayaa waxay tidhi maxaad ku qosashay markaas ayuu wuxuu yidhi haddaan kuu sheego waan dhimanaa waxay tidhi ii sheeg haddaad dhimanaysa xitaa markay ku adkaysatay ayuu ninkii dadkii isugu wacay si uu u dardaarmo dadkii ayaa isku dayay inay naagta la hadlaan oo ay celiyaan laakiin waa ay ka diiday waxayna tidhi waan ogahay aniguu igu qoslayaa ee ha sheego wuxuu ku qoslay xitaa haddii uu dhimanayo ninkii beeraleyda ahaa naagtiisii aad ayuu u jeclaa wuxuu go'aansaday inuu u sheego wuxuuna aaday gurigiisa si uu 2 rakaco oo sunno ah u tukado isagoo guriga ku dhex jiro ayuu wuxuu maqlay eeygii guriga u joogay oo diiqa la hadlaya wuxuuna ku yidhi diiqow adiga halkan ayaad 50 dooro iska dhex fadhisaa saaxiibkeen wuu dhiman rabaa markaas ayuu diiqii yidhi wallaahi saaxiibkeen haddii uu caqli leeyahay naagta wuu iska edbin lahaa aniga 50kaas dooro ayaa ii joogto middaan hadday iga xanaaqdo intaan edbiyo ayaan kuwa kale dhexda ka galaa waxaase fiicnaan lahayd in saaxiibkeen naagtiisa edbiyo ilaa ay ka toobad keenayso ninkii beeraleyda ahaa hadalkii ayuu maqlay kadib ayuu soo baxay wuxuuna u yeeray naagtiisa wuxuuna ku yidhi qolka soo gal gooni ayaan kugu sheegayaa markii ay qolkii soo gashayna si xun ayuu bilaabay inuu u garaaco ilaa ay ka qayliso islamarkaana ay tidhaahdo waan toobad keenaa halkaas ayayna naagtii hadalkeedii uga noqotay dadkiina ku farxeen maadaama ay nolosha ninkii badbaaday daawade intaas ay inoo joogta qisadan kooban kuwa kaloo ka xiiso badan insha Allah maalmaha soo socda ayaan idiin soo gudbin doonaa intaynu sheekada xigtaan ku kulmin doono dhammaantood isku duuban waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo